khasaaraha ku jira in qaraabada la gooyo waxaa kow ka ah inuu qofkii ku noqonayo malcuun qof la nacdalayba dee nacdashuna wax sahlan maaha waa cadho alleh fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum waacmaa absaarahum gaaladu ilaahay la hadlayo wuxuu haddii aad sii jeesataan waxaa dhab noqonaya inaad goysaan ciddii ilaahay uu idin faray inaad xidhiidhisaan oo dhan oo qaraabadu ay ka mid tahay bay idin goynaysa qofka ilaahay ka sii jeedsadaa ehelkiisana uu ka sii jeedsanaya dadka sidaas sameeyana ilaahay baa nacdalay buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala indhahoodii iyo dhagahoodana wuu tiray inkaar baa ku dhacday markaa waxay dad aan indhala lahayn dhegano lahayn nacdalanna aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi suurat lbaqara ku sugan wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin aladiina yanquduuna cahd allahi min bacdi miihaaqi wayaqdacuuna maa amara allahu bihi an yuusal wayufsiduuna fi lard ulaa'ika hum alkhaasiruun dad khasaaray oo faasiqiina ayuu ilaahay ku tilmaamay kuwa gooye qaraabada aayaddaana suurat lbaqara khasaaraha labaada ku jira qaraabogoynta waxa weeye haddaad ilaahay caasidoo diidda inaad qaraabada xidhiidhso khasaaraha kale ku jira waxa weeye waa yucajal lihada shaksi alcuquubatu fi dunya intaanu aakhiraba gaadhin cuqubo adduunyaa usoo degdegaysa waxaanay dadku la wada cabanayaan way iska wada cuquubaysan yihiin markay iyagu godob kala wada galeen ayaa midibo qolaba qola inkaar ka kasbatay markaasaa aafaad badan ay garan waayeen baa dhex dhacay markaa iyadoo dhibaatadii aakhiraba dambaysa tu kalaa soo degdegaysoo nafsi ah nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku xusay xadiid saxiixa min xadiidi abi bakra oo warinaya abi daa'uud iyo tirmidi maa min danbin ajdaru an yucajila allahu lisaaxibihi bilcuquubati fi اdunya maca maa yadakhiru lahu fi اlaakhirati min albagyi wa qadiicati اraxim ma jiro dembi uga dhaqso badan oo uga degdeg badan cuqubadiisa inuu ilaahay qofka u soo qadimo iyadoo tii aakhirana ay sugayso labada dembiye ah gardarrada iyo qaraabogoysnimada macnaha qofku hadduu yahay qof qaraabadana gooyo dadkana dulmiya cadaabkii aakhiro sugayaa mid adduunyada ilaahay u soo dedejinaya oo cuqubo adduunyaaba ku soo degdegaysa buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa nafsi baa ku dhacaya dhaqso ah taasina waa musiibo kale oo iyaduna ay leedahay qaraabogoysnimadu horeynu usoo xusnay xadiidkii sheegaya inuu ilaahayna qofkan goynayo goyntuu ilaahay qofkan goynayo adduunyadii aakhiraba way noqonaysa markuu ilaahay abuuray khalqiga ayaa nebigu wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam raximkii baa istaagay raximkii qaraabadii baa istaagtay oo ilaahay uu ka dhigay wax la taaban karo markaasaa ilaahay waxa uu yidhi waxay tihi qaraabadii haadaa maqaamu lcaa'id minka min alqaiica ilaahay halkan waxaan u taaganahay inaan kaa magan galo in la igooyo markaa ilahay wuxu uhi miyaanad raalli ka ahayn qofka ku gooyo inaan anigu gooyo cidda ku xidhiidhisana anigu aan xidhiidhiyo maya intaasi way igu filan tahay bay ti markaa ilaahayna wuxuu ku yihi fadaalika lak haddaba ballantaasaad qabtaa anigu waxaan ballan qaadayaa qofka ku gooyo inaan gooyo marka adduunyadana ilaahay wuu goynayaa aakhirana wuu goynayaa wax walba jiq bay ku noqonayaan dhanku u dhaqaaqaamo way ku soo oodmaysaa waa arrin cajiiba wey waxa markaa isweydiin leh sideebaa loo xidhiidhinayaa dadkan qaraabada ah waxa lagu xidhiidhiya waxa kow ka ah hanuunka ilaahay u fiirsan nebiyada nebi waliba wuxuu isku dadaalayaa dadka ehelkiisa ah inuu u fidiyo hanuunka yaa qowmi baa ku badan qisooyinka nebiyada tolkayow xaasaskooda caruurtooda aabbahood nebi ibraahim iyo aabbihii nebi nuux iyo inankiisa xaasaskoodii adiga arkaya marka ambiyadu mid waliba qaraabadiisa ayuu hanuunka ula dadaalayaa sidaasuu ahaa nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam waa kii intuu quraysh iska dhex taagay jilib jilib ugu yeedhay inantiisa faadumo soo gaadhsiiyey markii dambe lahaa cadaab aakhiraan idinka digaya markaa wax loola gurmado hanuunkaa kow ka ah iyo hallowgoo lagala dadaalo intaa kadib wixii wax siina oo dadku bahashan adduunyada way iska jecel yihiin iyadana wixii loo heli karo
hooday dadku jecel yihiin hadal kaliya ma mare iyadana waa loogu dadaali wixii loo helayo nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku xusay xadiid saxiixa oo tirmidhi uu warinayo min xadiisi salmaan ibn caamir وعلى هذا الحديث كان شيخنا وحو يا حديثك الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة صدقة وصلة صدقة الله سيقف مسكينه أنا هالكاغهين وصدقة صدقة سيسمي ده هالكأنا صلة ويتي قراب حديدين ويتاي صدقنا ويت مركا وإسسار يضو والله ما انت الأقربون أولى بالمعروف بلايا سما فلك وحا استاهلوا كسيها بون دادك إهلك صدقة بحيوسك يسيبه ورنشلين صومالدنا ولبا وحا بحين السنة واحد سكود دوينيسا كوا بكينة تكود دويسو كوا بكينة تكود دويسو oo taa macnaheedu markaa waxa weeyaan qaraabo xidhiidhintii waxay noqonaysaa qofka ku gooya ama ku neceb inaad wax siiso oo aanad la raadsanin oo kuwa isku wanaagsan tihiin ama ku abaal guda imtixaanku wuxuu u badan yahay hadiya jeer dadka isku dhow ibliiskuna dadkaas uu ka dhax shaqaystaa oo isku daya inuu tartansiiyo xasad ku abuuro madaxa isugu dhufto oo isku diro isugu dadaalaa marka adiguna inaanad madaxa la dhicin oo shaqadii ibliiska aanad fulin laakiin aad isbambaanisood ka baydhbaydha ku dadaal oo ka wax daweynayaad noqoto marka wahabka wax loo xidhiidhinayaa waxa weeye qofka qaraabo xidhiidhinta laftigeeda baa waxay noqotay qofka ku jaraya ama ku gooyay inaad adigu xidhiidhiso rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo taa ka hadlaya wuxuu yiri أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح صدقة لو حولك سنت الله سيا قفك حكتدا وأبو نحلية نحلك هو هي وعيلي عراي هيس وتكون عافي ما هذا نيس سجوا ضوء يافك بورا يا حاجة سوسي كسنة سادة نودي بيسا وثم بليين يسا ودودي بيسا وثم بليين يسا أدون بدون مير قوة وصا عافي ما هذا الدورة ورا ذي وحن محاكو وعن قفك الوابك وناتشين يا بورن دورة بل إنه إنسى عنانته مركز مركز لو حولها ليس الواصل بالمكافي قفك قرابة حريرية لما إلى هذا قفك عدي حريري سون حريرية عدي قويسان قوية لكن قفك هذه تير قرابة حريرية وحوي كحريرية عدة قويس كاسا قرابة حريرية انت معنا رايدواتها ويوحلقوا حساب تمايا هاش نفط أمر بوحي كو هذا كل كاد أقليسيسو أجري وين بالله nafta way ku adag tahay qof aad wanaajinayso oo ku xumaynaya oo aad wax siinayso oo ku xaasidaya inaad wax siisaa nafta way ku adagtay taa markaad ogolaysiisaa ajri weyn helaysa ninba rasuulka u yimi sallallahu alayhi wasallam ninkaasi waxa uu leeyahay waxaan leeyahay rasuul allah qaraabo ayaa leeyahay anigu dadka qaraabada waan xidhiidhiyaa iyaguna way gooyaan waan wanaajiyaa way xumeeyaan waan u dulqaataa iyaguna way igu xadgudbaan bal ka war wuxuu arintu hadii ay tahay sida aad sheegayso waxaad ka dhigan tahay adiga oo dambas kulul afka ugu guraya macnaa way eedayaan waxa aad siinaysa adigu ku wadun ha ka daynin adaa ka macaashiya ilaahay xaqiisana dhahiir baad ka haysataa ma dumta ala dhalik intaad samafalka iyo wanaaga wadood gacanta sare leedahay ilaahay xaqiisa dhahiir baad ka helaysaa macnaa malaa'ik ku heelisa adaa gacan sareynayo nafsi maalka helaya marka waxa weeye waxa lagu abaabulayaa dadkiina aanay kala firdhanin oo aanay kala fakanin bal dad badan baa markaad waraysato waxay ku oranayaan war marka kuwa aan ugu roonahay un baaba iigu daranba kuwana u wanaagsanahay ayuun baaba iraad gurayo ee xamalayo ee xadaafirayo ee xumaynaya yeelkood marka arrimahaas ay xusilay 10 qodob weeye aynu kaga hadalnay qaraabo xiriintu nooca ay tahay faa'iidada laga helayo goynteedu dhibaatada ay leedahay iyo qaraabada ku ay yihiin marka casrigan aynu joogna fitnadu ay badan tahayna waa inaad isku daydo dawada sharciga inaad qaadato dadka duruufaysanna iyadoo ummadda oo dhan wax la wada siinay wixii aad u heli karto haddana kuwan inaad ka sii bilowdo dhinac kale laga eegayaa waxa weeye bulshadu dee sibay isugu xidhxidhan yihiin kuwa ku xiga haddaad nagaga filaato dee kaalin baabaad naga buuxis laakiin kuwii ku xigay haddaad nagu soo dayso
dee kaalin buuxis ma ihid dhinac kale kolka laga eego waxaynu arkaynaa sharcigeen iyo ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay addoomahan abuuray siduu dadka ugu naxariis badan yihin ciddii adiga aada u naxariisanaysa isxigteen baaba waxaanoo dardaarani uu ku soo arooray oo lagu yihi kuwaa isxigteen aad u naxariisanayso ayaa lagu yihi haddana usii naxariiso marka ilaahay baa cid walba kaaga naxariis badan iyo sharciga uu inoo soo dejiyey intaasaynu ku soo gaabin lahayn kelmaddeennan kooban allah inagu anfaco cibaadadana allah inaga aqbalo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu